tumepewa majina mingi. Lakini katikati ya hii majina mingi tumepewa, kuna wengine walikuwa na tofauti zao na wamepata nafasi ya kufanya nini? Ya mtu ambaye walikuwa na tofauti aingie hapo. Ninasema hiyo kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya hata kazi ya muziki na hizi zingine zenye zinafanyika katika nchi, unakuta wewe umekosana na jirani, unapeana mtoto ya jina ya mtoto ya jirani yako ili aonekane kwamba yeye ni mtu mbaya. Lakini tunashukuru Mungu kwa saa hii mambo ya mazimu hii simu inatusaidia sana. Sababu kama ilipokea pesa, hakuna mahali hiyo message itafanya nini? Itatoka. Kama uliongea, kwa sababu hiyo maongeo itawekwa tu vile ulikuwa unaongea na inawekwa on, wewe mwenyewe utasikiza uambiwe nani anaongea, unaongelesha nani. So tafadhali kama wazee, sisi tunatafuta amani. Na by the way wacha niwaeleze kwa kina baba. Sisi hakuna mtu ametuleta hapa kwa sababu tumekuja hapa kwa sababu ya kazi. Na ile kazi imetuleta hapa ndio tutaifanya. Lakini shida ya kazi yetu ni kwamba ile kazi mimi nafanya na ile kazi investigation team wanafanya na ile kazi polisi wanafanya na ile kazi another arm wanafanya ni tofauti. Lakini zote lazima zikutane wapi? Pale mbele. أنا وحنا قالوا يحجر وأنا هاي وحنا كسر على بيش السماء شيل بس هكا نقول لي أنا بقول سد حنين ماشي FTC شركة سجى وحاه قامنا هيلو وذي باشا وقاعدين وجار يا شركة قامنا هي هوين أيضا نبرجلنا أيضا كسر على ويل السعوديين odayaal ka tirsan Gaaris oo Cusmaan uu kamid yahay waa Sacuudeen oo odayaal oo ogaadeen marka waxay raadinayeen nabadgelyo wixii dadaal u dhacay taariikh 16 dibkii dhacay ee labada beelood dhaxdooda ka dhacay arintaas ay ka socdeen waxay odayaashii la weydiiyeen in ay labada beelood intay la hadlaan bari anaga intaan u hormarno aan wada hadalno sidaas ay codsadeen odayaasha arinta ayade waan ka jawaabnay si tolnimo walaalnimada uga jawaabnay waxaan u sheegay meesha dib badan ka dhacay laakiin taariikh 16 beesha Soomaal ay xanuunsatay wixii ka horeeyna ay nabadgelyo aad ugu dadaali jirtay aad ay nabadgelyo ugu dadaal jirtay laakiin taariikh xigtaan ilmaha ardayda hal laayay wixii ka dambeeyay inay beesha Soomaal xanuunsatay taas aan u sheegay waxa kale oo u sheegay in walaalaha anaga ama culimaha noo soo maraan ama ayaga toos madaxda hoos soo hadlaanbo inay dabceen inaan wada hadalno oo si walaalnimo loo wada hadlo waxaan dhahnay waxa taala tacsiyadii wali ma dhamaanin waxaan rabnaa todobari ka bacdi bal inaan ka dhigano hadalka taasan hadalka ku dhameynay waxaan hadda markaa aan inii sheegi nimankeenan ergada waxaan rabnaa taariikhda han qabanay annaga inaan walaalaha annaga isku imaano hadduu war kale ka soo baxana waa naga maqli doontaan codsi aad codsateen waan qaadanay tolnimo iyo walaalnimaan u qaadanay annaga ma rabno digaal wiil baa ku dhintay wiilku ma dhasho روحه waxa ugu qiimo badan ruuxi gacantiisa ama afkiisa ruux muslim uu san ku dhimanin waa ugu qiimo badan yahay dunuubta la galaya hatta shirki waxay ma aragtay culimada ku murmaan toobad ma leeyahay mise malaha ruuxi mu'min dilo ruux muslim ruuxi dilo waa lagu murasaya ma toobad keeni karaa mise ma toobad keeni karaa wa illa shuu ruuxa shirki haduu kala ma ka toobad keeni karaa laguma murasana kolka dilka xaalkiisa waa saa mideeda kale waxa leeyahay wardadkeena muslimiinta oo adduunka in yar weeyaan waa laga tagay amaan ha lagu noolaado nabadgelyo ku noolaada jiiraanimada ilaaliya walaalnimada ilaaliya macnaha idinka is ilaaliya waxa wax dilayana gacanta aan qabanno illa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri qur akhaaka zaliman aw madluman walaalka haduu zalim yahayna gacanta qabo hadii laga galdaran yahayna gacanta qabo zalim haduu yahay ka reeb waxa wax dilaya zalimiin weeyaha laga reebo nafta muslimiinta la badbaadiyo macnaha mideeda kale carabka waxyaalooyinka dadka isku laayo kamid yahay carabka la ilaaliyo carabka aan aad u ilaalina dawladana waxaan ka codsanaynaa sida day laga codsadayba meediyaha dadka xumaatada ku sayraya ee ku sii daynaya hala qabto dawladda ha ka qaata talaaba
حقا waxa la isku laaynayo kala badi media oo fara badan bedelkii loo adeegsan lahaa wax wanaagsan baa xumaataha iyo jeerba loo adeegsanay mid weeyo mideeda kale waxaan diyaar u nahay insha Allah taala anigoo ka culimo ahaan oo hadlay ka duq ahaan oo hadlaayo inaan maartay amaanka waxaan ilaa qabano dadkiina duqeyda ahaa ee wajaarka imaaday iyo dawladaba inaan garab istaagno oo garab aan u noqono hay'adan ayadana gabdhaha ay khayr Allah siiyay meesha gadaasheeda ku sawiran ayakana mahad baan u celinayna waxaan leenahay wala. First and foremost, we are thanking Garissa Women Peace Movement and the local peace committees for initiating this meeting. This meeting, which concerns the problems which happened between two communities in Garissa, that is Sinwak and Samawal. We are the elders. We, the elders here, who are composed of local peace, Garissa Women Peace, and the Ogaden from Wajir South, who are living in Garissa, and the two tribes who had the conflict, the Sinwak and the Samawal, and also the third tribe, which is Hulan. We said, and these are the solutions. One, we are sending Rambi to the families who lost the young ones, and we pray to God for peace. Or second, we came to conclusion in the sense that we reached peace to prevail between the two tribes, and each tribe to talk to their people and peace to prevail. Kwa majina mimi naitwa Abdullahi Adan Abdi. Wale wazee wameongea mbele yangu ndio wamemaliza maneno, tuliongea hivyo na waliongea vile tulikubaliana. Ile kitu yangu ni mafupi. Ile kitu tulisikizana ama tumeongea hapa, kabila mbili ambaye imetokea hasama kati yao, tuliongea, walisema mpaka Wednesday ndio watakutana. Baada ya hiyo ndio tunaweza kuingilia. Sisi ambaye wazee wale wamekuja hapa, Aulian, wazee wa Aulian iko, wazee Audha iko, wazee Abdullah iko. Sisi, mimi kama mimi naongea lugha ya yani madomo ya wazee wa Wajir South. Wazee wa Wajir South. Tulikuwa hapa, wazee wa Wajir South walikuwa hapa. Na kama mimi naongea lugha ya nikiongea mimi naongea lugha ya Wajir South. Wazee wa Wajir South. Kwa niaba ya wazee wa Wajir South. Ile maneno iko tulisema wale wamekufa, wengine wamekufa, shida isitokee shida nyingine ya kuuawa watu na wengine wakufe. Kama sisi ni wazee wa Wajir South, tumeongea ile mahali shida yote inaweza tokea, kama mpaka mahali naitwa Kulbio, Ulugo, Wara, yote tumeongea. Tulisema watu waweke silaha yao chini, shida yao ambayo kama uko na rungu waweke chini, na wangoje sisi kutoka kwetu, wangoje sisi suluhisho ambayo tumefika. Waxaan u mahadcelinay guddiga nabadgelyada oo Peace Committee-ga oo xagga gabdhaha iyo odayaasha iyo xafiiska DC-ga Garissa ayaa shirka soo qalqay. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan ku guuleysanay saaka waagan bariyay in aan iskugu imaano meesha FTC-ga la yiraahdo oo ka tirsan magaalada Garissa, annagoo khalafaadkii labada qoys ka dhaxeeyay ka hadlayno. Waxaan Ilaahay ku mahadinaynaa arrinta meeshaan moodaynay inay aad uga jilicsan tahay
ومن لو أيجو تقولك كوان وحن إسلقى هذا لما أنت النظر لغات كستبع أكو هذا اللي وحياله دعي خلافات ككيني إن شيطان وسكليه شيطان هو الإسكبرية إن وصل خلافات ضب وصل علم وحي الشيطان ولقت كله هين عن قبيل لونس بيني ودجال ضب وصل أنت عن الكلية كجرنا labadii qolo waxaan labadaba ugu baaqaynaa odayaashooda ugu baaqnay ama inaga ogolaadeen in ay labada dhinac diyaar u yihiin in khalafaad wixii hore ee dhacay umbaasan ku kabilahayn ama ku dhaawactiri lahayn rabnaa ku aan ku daaweyn lahayn wax kale oo khalaaf inuu sabdicin qodobka koowaad kaas aan ku heshiinay qodobka labaad odayaashu waxay naga codsadeen inay hor u kulmeen labadii beelood arrintaas oo aad noo farax gelisay oo hadalka agtiigsan ee leeyahay meeshaan moodaynay meel ka sokay arrinta joogta in ay hor u wada hadleen oo beesha Samawadal ay ogolaatay in arbacada muddo lagu siiyo waxyaalo ayaga ka maqan oo rabaan inay maxaa yeelay ninka ragga markuu hadalka runta ee gaari rabo waa wax kaamil inuu keeno inaad golaha soo fadhiisato adigoo waxba isku hagaajilin oo hadhow markaad golaha soo fadhiisato waxaas dhacay lagu dhaho waa aad bay odayaasha uga dadaali jireen waana mahadsan yihiin aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Qoyb Maxamed Akay waxaan ahay dalada habeenka ee Garissa County Peace Movement am the focal person maanta alxamdulillah wallahi waxaan noo suurad galay wax la yaab leh waxaan isku keenay odayaasha beesha Samawadal iyo Sinwa هدف وين أمانتو إيمانين وحياة أنا قاعد نودن جاي مقالة جارس كدعي وحيالي حسوقي عبرتي كجريودين مقالة جارس ومعناها قاعد ينودن قصي مركب حان درينا إن عندك كني سكانة لبض بيلوت وده حديث أنكو سمعنا وحنا أنا جودي خلافات كجارسة كاونتي وهوين كجارسة تاونشيب موفمنت أي قلت هاي هرمود marka maanta wallahi wax weyn ma noo qabsanay koow waxa lagu heshiiyay horta in dadka nabad loo baaqo laba waxa loo sheegay nin walba qoyskiisa ku dib ugu noqdo inuu nabadda u baaqayana ay noqoto macnaha mid hergasho oo akhrinta afka duqeyda ka soo midda saddexaad subcounty-yaasha dhan dhisiyaasha inay macnaha iyagana baaqa nabadda qaataan oo waliba loo qabta shirar khaas loo qabta dadka asaga mujtamacana macnaha in loo gudbiyo waxaan alla ninka isku daya inuu media-ga wax ku soo gudbiyo wallahi habeenkii waxyaalaha qaar oo meesha lagu aad bay u fiicnaa laakiin waxaan la yaabanahay Soomaali maxamed ay meelaad joogtaanba reegaarisa oo meelaad joogtaanba idinkoo dibadda joogteen markaad annaga noo soo tawinaysaan message-yaal aad qalbigayna u dhaawacay oo isku kaandinaya war maxay idin taraysaa marka waxaan idin walaalayaal in tilaabo xoog leh ka qaadi doono marka waxaan idin waxyaalaha kale oo amaanta ku taliya ee ha ku talina khilaafaadka intaas aniga ku dhamaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكون دمادي أنا هذا الكون وحكو أدني هاي بدأ ضيان وهيئة أمان كشقيسة وقبلها أي واحد بساوسن بنويري وحنقاد هم هذينا لو هذا القلاع ماشي لويري هذا الكودي والله هذا ماشي أن كفلين مال كدو نجرا حبلين وهي وحال ديار قلنا هاي هنا النصارى حقشان هنا النجا وذهبنا هنا نبدأ نقول لعين صدق ذا وربع ديار قلنا هاي بعدين خلاص وحوي وحقفل بلقيني كرمها حنوب وقتل بسلادي ومركب نكي وما وضع أوركي سوسقرين يعني نوب وقتل درتين وحن لي هاي فكي شركة سوق وقابية تغير اللويري إلى بدي قل اللويري لا هذا عادي صدق ذا عادي هذا ما سنتين الله يديم بركة غير ما يدري السلام عليكم